السلام عليكم magacaygu waa Amiin Amni halka naga daawanaysaan waa kanaalka Faraxlow maanta waxaan doonayaa inaan idin soo bandhigo muuqaal kooban oo ku saabsan xeeb qurux badan oo ku taala magaalada Muqdisho ee gobolka Banaadir gaar ahaan degmada Xamar Jajab xeebtan quruxda badan waxaa la yiraahdaa School Blizia sida aad magac ka garan kartaba xeebtan ayaa ku taal iskuul lagu tababaro ciidanka booliska Soomaaliyeed sidaa daraadeed ayaa xeebtan magac School Blizia loogu yeeray xeebtan ayaa loo ogol yahay in qof waliba uu u yimaado dalxiis ama kubad maadaama School Blizia ay ku taalo barxado waaweyn oo ay dhalin odayaal iyo caruurba ay ku ciyaaraan kubad oo ay xitaa ku sameeyaan jimicsi sidoo kale School Blizia ayaa ah goob ay degan yihiin dad shacab ah sidaa awgeed qof waliba shacab ah waa loo ogol yahay inuu halkan yimaado gudaha School Blizia waxaa ku yaal mid ka mid ah isbitaalada ugu tayada wanaagsan magaalada Muqdisho isbitaalkaas oo lagu magacaabo Yaardimeli xeebtan ayaa leh jamalo aad u qurxoon taasoo sababtay in dhalinta ay xiiseeyaan inay sawir ku galaan oo ay xitaa muuqaalo ku duubtaan khayraadka uu Ilaahay ku manaystay xeebtan oo ugu horeeya malayga ama kalluunka ayaa ah kuwa fudud inaad soo dabato adigoo isticmaalaya maqaalin iyo cayayaanada yaryar ee bacaadka hoostiisa ku jira ayaa isku xiraysa kadib jamalada ayaa istaagaysa oo sidaas baa kalluun yaryar ku soo daban karta oo uma baahnid wax doon ah kalluunka waa kuwa dhaylo ah oo waa ku qadayn kartaa ama waad ku cashayn kartaa kalluunka waxaa dabta dhalin yar iyo caruur aad u yaryar laakiin nasiib daro xilliga aan xeebta imaaday ayaa ahayd xilli subax ah sidaa awgeed ma joogin wax kalluun dabanaya daawada waxaa jira waxyaabo aadan ka ogeyn halkan School Blizia waxaa ku yaal goobo qabuuro ah oo lagu duugo dadka dhinta ama geeriyooda qabuuraha waxay ku taalaa meel aan sidaa ugu fogeyn xeebta laakiin qabuuraha waxay ku taalaa buuraha korkooda halka goobaha damaashaadkana ay ku taalo buuraha hoostooda School Blizia waa meel qof walba jeclaysanaya imaanshaheeda maadaama ay tahay xeeb qurux badan hawo fiicanna leh xeebtan waxaa inta badan loo soo dalxiis tagaa maalmaha fasaxa ee Khamiis iyo Jimco waxaana maalmaha fasaxa xeebtan isugu yimaada boqolaal shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir haddaba daawada ma jeclaan lahayd inaad mar uun soo booqato xeebtan quruxda badan waa hubaal haddaad soo booqato xeebtan inaad dareemi doonto furfurnaan maadaama ay leedahay hawo aad u wanaagsan xitaa yaanan ka iloobin School Blizia waxay leedahay laami dheer oo ku haboon in sawir qurux badan lagu galo laamigaas ayaa si toos ugu aadan isbitaalka weyn ee Yaardimeli muuqaalka xiga waxaan oo rajaynayaa anagoo faraxsan oo caafimaad qabna oo isu xiisnay inaan soo laabano mac salaama